السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرزاق أحمد halkaan naga daawanaysan عبد الرزاق أحمد official ku soo dhawaada mawduuceena maanta waxaa ku saabsan yahay sidee applicationada taleefankaaga kuugu jira aad u yareyn kartaa adigoo aanan isticmaaleynin wax application ah oo aad u baahnayn inaad la soo degto application Play Store balse aad setting-ka gudihiisa aad ka xali karto. Ma rabo video-ga inaan ku dheeraado balse waan soo koobayaa. Marka koowaad waxaan sameynaynaa step by step ayaan u xali doonaa aan isla soconno. Marka koowaad waxaan geli doonaa qaybta setting-ka. Marka koowaad markaa setting-ka tagno waxaan setting-ka tagaynaa. Setting-ka markaa tagno kadib waxaa u gudbi doonaa qaybtan ay ku qoran tahay display. Qaybta display ay ku qoran tahay u gudbi doonaa. Display markaa tagtid kadib waxaa kasii tagi doontaa qaybta ay ku qoran tahay home screen. Home screen ayaa tagi doonaa. Customize the home screen layout and widgets. Meesha ku dhufan doonaa. Home screen-ka markaan tagno kadib waxaan u baahannahay waxaan xali doonaa qaybta ay ku qoran tahay home screen grid. Home screen grid-kaas ayaa ku dhufan doonaa. Home screen grid-ka markaa ku dhufano meeshaan waxaa noo soo baxday 4x5 ayuu noo saaran yahay. 4x5 markuu noo fuulo 4x6 markaa ku dhufano xogaa abki waa sii yaraana. 5x5 markaa ku dhufano waa sii yaraana application-ka. 5x6 markaa ku sii dhufano application-ka waa sii yaraana. Minimum size-ka aan isticmaali doono oo grid-ka wuxuu noqon doonaa 5x6 kadib save ayaa dhahanaysaa. Application-ki waa kana hadayt waa uu waaweynay hadda laakiin waa uu yaraaday. markii aad u baahan tahay in aad application-kaaga yareyso ama aad weyneyso uma baahnid inaad setting isticmaasho. Marka intaas ayaa kusoo koobaya. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.